السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا تفسيرك سورة ماعون. سورة ماعون أما سورة أرأيت وسورة كسو دكتي مكة وحين سو دكتي النبي صلى الله عليه وسلم انت أوسن مدينة هجرون. سورة وحيكاها ليس لوا كوحوت لبداس كوحوت أو كلا كوح قال oo diidan maalinta is-abaalmarinta inuu allah subxaanahu wa tacaala abaalmarin doono soona saari doono kuwa diidan bay suuradda ka hadlaysaa. kooxda labaad waxay ka hadlaysaa munaafiqiinta, kuwaas oo sheegto inay yihiin muslimiin laakiin qalbiga gaalnimo ay ugu qarsan tahay. suuradda waxay inoo sheegaysaa sifooyinkooda bay inooga waramaysaa munaafiqiintaas. sifooyinkoodana waxaa ka mid ah in agoonka xaqiisa ay ka dhacaan, xaqiisana ay siinin, dadkana ay ku boorinin in maaragtay agoonka xaqiisa la siiya lana quudiyo miskiinka. tafsiirka suuradda oo inoo bilowday waa kan aan ka faa'iidaysanay insha allahu tacaala. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay bismillaah, magaca eebba baan ku bilaabayaa, eebbahaasoo arraxmaani naxariis guud naxariista, arraxiimi naxariis gaar ahaaneed naxariista. oo naxariis guud wuxuu u naxariistaa muslim iyo gaal inta ay dunida joogaan. arraxiimna waa inuu naxariis gaar ahaaneed u naxariista mu'miniinta maalinka qiyaamo. ara'ayta ka waran alladii midka yukadibu beeninaya biddiini maalintaas abaalmarinta beeninaya ka waran. ara'ayta waxaa la dhihi karaa ma aragtayna waa lagu fasiri karaa, ka waranna waa la dhihi karaa. ara'ayta ka waran alladii midka yukadibu beeninaya biddiini maalinta is abaalmarinta. wasadaqa allahu id yaquul zacama aladiina kafaruu an lan yubcathuu qul balaa warabbii latubcathunna thumma latunabba'unna bimaa camiltum. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegayaa inay gaalada qaar sheegteen in la soo saari doonin, lana abaalmarin doonin. laakiin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waa laydin soo saari doonaa waana laydin abaalmarin doonaa. fadaalika midkaas alladii kii waaya yaducu riixaaya oo xaqiisa u diidaaya alyatiima agoonka xaqiisa buu ka dhacaa, xaqiisa agoonka ma siiyo. walaa yaxudu kumana booriyo, dadka kuma dhiirageliyo calaa tacaami lmiskiin, quudinta miskiinka dad kuma booriyo. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay marka ehlu naarka la waraysta qaarkood oo lagu dhaha maa salakakum fii saqar, waxay leeyihiin qaaluu lam naku min almusalliin, maanan ahayn kuwo tukado, walam naku nudcimu lmiskiin, maanan ahayn kuwo quudiyo miskiinka, kuwo quudiyo maanan ahayn. marka miskiinka in la quudiyo waa arrin muhiim ah oo diinta ka mid ah. marka miskiinka waa in la quudiyo. walaa yaxudu dadka kuma booriyo calaa tacaami lmiskiin, quudinta miskiinka kuma booriyo. allah subxaanahu wa tacaala marka halkan wuxuu uga hadlaa aayadahan dambe munaafaqa buu uga hadlayaa. munaafaqaas oo tukada laakiin salaadiisa moog, axkaamteedu moog yahay, waqtigeedu moog yahay. nabigana sala allahu calay wasalam uu xadiis noogu sheegay salaadaha munaafaqa ku culus inay yihiin salaatu alcishaa wa salaatu alfajr. allah wuxuu leeyahay fawaylun halaag wuxuu u sugnaaday lilmusalliina kuwa tukada. kuwa salaada ka tagay lagama hadlaayo, oonan wejiga dhulka dhiginba, oon sujuudin lagama hadlaayo, laakiin waxaa laga hadlayaa kuwa tukada. alladiina kuwaasoo hum ayaga saahuuna moog can salaatihim salaadooda bay moog yihiin, axkaamteeda ma garanayaan, shuruudaheeda ma garanayaan, waxyaabihii salaada looga baahnaay oo dhan ma garanayaan. fawaylun halaag wuxuu u sugnaaday lilmusalliina kuwa tukada, alladiina kuwaasoo hum ayaga saahuuna moog can salaatihim salaadooda. waxaa kale oo sifooyinkooda ka mid ah istustuskaas oo ah shirkul asqar ama shirkiga yarka ah. الذين كواسو هم أيضا يراؤون dadka
istustuso dadkay istustusaan wayamnacuuna diida almaacuuna samafalka diida ama maacuunta diida samafalka waxaa ka mid ah bay dhaheen saxaabada qayb ka mid ah zakada ugu sarrayso waxaana ugu hoosay waxyaabaha la kala amaahdo oo guryaha looga baahan yahay sidii masaarta sida weelasha waxyaabahaas oo la kala amaahdo oo loo baahan yahay baa ka mid ah bismillaah magaca eebbe baan ku bilaabayaa arraxmaani naxariis guud naxariista arraxiimi naxariis gaar ahaaneed naxariista ara'ayta ka waran alladii kii ka waran yukadibu midka beeninaya biddiini maalintaas abaalmarinta beeninaya ka waran fadaalika midkaas ama kaas alladii kii waaya yaducu tikhaantikhiinaya ama riixaya alyatiima agoonka allah subxaanahu wa tacaalana wuu inooga digay agoonka xoolihiisa in la dhaco in la qaato allah subxaanahu wa tacaala meelo fara badan buu inoogu digay uu dhahay yaaran la taabanin xoolihiisa walaa yaxuddu kumana booriyo dadka calaa tacaami lmiskiin miskiinka in la quudiyo dadka kuma booriyo asagana dadku booriyo iska dhaafe asagaaba agoonka dhib u geysto fawaylun halaag wuxuu u sugnaaday lilmusalliina kuwa tukada aladiina kuwaasoo hum ayaga saahuuna moog can salaatihim salaadooda moog waqtigeedii marka la gaaro ma tukadaan nabiga sala allahu calayhi wasalamna waxaa la weydiiyey camal la qabto kee ugu wanaagsan markaasuu yidhi salaada markay saan usoo gashaba waqtigeeda in lagu tukadaba acmaasha allah subxaanahu wa tacaala loogu jecel yahay uguna fadli badan ah aladiina kuwaasoo hum ayaga yuraa'uuna dadka istustusaan wayamnacuuna diida almaacuuna samafalka ama maacuunta diida marka waxaan filayaa suuradda tafsiirkeeda in laga faa'iidaystay allah subxaanahu wa tacaala hayna siiyo xalaawat liimaan ama dhadhanka maaragtay iimaanka si aan u fahanno hadalkiisa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu